الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. إلهي سبحانه وتعالى وحن كبريا كلا كان نقلي وكلا بركيسا. إلهي سبحانه وتعالى naxariistii iyo sakiinadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu carabka iyo qalbiga ku sugo kelimadda xaqa ah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qalbiyadiina iyo dhegihiinaba u furo, nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca. aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah ulaa'ika aladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulul albaab. intaa kadib walaalayaal, sida uu sheegay walaalkay sheekh cabdilxaliim ibnu sayid, kelimadda caawa waxay ku saabsan tahay kelimaddaas ka mid ah aayad qur'aanka kariimka ah, mataa nasrullah. isweydiintaas ama su-aashaas horay ay isu weydiiyeen rusushii iyo dadkii mu'miniinta ahaa markii ay la soo gudboonaatay dhibaatooyin iyo cariiri iyo culaysyo badan oo xagga dacwada iyo diinta ka soo gaaray. sida aayadda 215 suurat albaqara ilaahay uu ku yidhi: am xasibtum an tadkhuluu aljanna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني سؤاشاس dadka isweydiiyey ma aha dad caadiya. متى نصر الله حتى dad caadiya maahan, waa rusul iyo dad mu'miniin ah oo iyaga la jira oo macooda ah. waxaad ka dareemi kartaa culayska meesha ka jira intuu leegyahay. marka kelimaadkayga waxaan u qaybin doonaa ama kelimada dhowr mas'alo ilaa 5 mas'alo. mas'alada koowaad, isweydiintan maxaa keenay mataa nasrullah uu yidhaahdo rasuulkii iyo dadkii mu'miniinta ahaa. waxaa keenay oo halka aad ka garanaysaa saan sheegnay culaysku inta uu gaaray. ma aha dad fulaya ah, ma aha dad aan sabir lahayn. dadka kelimaddaasu ay ka soo baxday mataa nasrullah, ilaahina subxaanahu wa tacaala waa u jawaabay oo waxa weeye waa loo sheegay, innagana laynoo sheegayaa. mu'miniintoo dhanna calaa marri alcusuur waqti kasta oo ay joogaan loo sheegayaa nasriga ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshiisi inuu yahay iyo ballantiisi uuna dhow yahay. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waa dhow yahay, waxaa laga yaabaa dhowaanshaha innagu kaynu u naqaano iyo kan ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa macnihiisa uu ka yahay waa kala duwan yihiin. ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacudduun. marka aayaddaas aayado la mid ah oo ka sheekaynayaa jira, keligeed ma aha. su-aashaas iyo zilzaalka. zilzaalku waa saad garanaysaan waa dhulgariir oo kale. dhulkii inuu gariiro oo isrogo oo burburo heer oo wax walba oo korkiisa saaran ay isbeddelaan, zilzaalka kaasoo loo yaqaano. hadda markii dhulgariir meel uu ka dhaco waad aragteen sida xaaladdu ay noqonayso. qur'aanka kariimka marka aan fiirino 4 meelood ay zilzaal, kelimadda zilzaalka ay ku timi. laba meelood oo ka mid ah
waxay la xiriirsan tahay qiyaamaha iyo waxa dhacaya sida aan loo suuraysan karin oo ay dhulgariir magaalo dhulgariir ku dhacay oo kale ay noqonayso إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ما أنت قيامها سيدا لولكو نقونا يبو إلهي سبحانه وتعالى كشكي لولكو يسبدلية الدونك أردن بالرقمانية marka labaad iyaduna waxay ku xiriirsan tahay ahwaasha qiyaamaha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kan ku leh suuratu alxaj yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shayun cadiim zilzaalka iyo gariirka iyo dhulgariirka iyo burburka ka dhaca maalinta qiyaamaha waa mid weyn oo idinaan suuraysan karin ee ilaahay ka baqa ina zalzalata asaacati shayun cadiim waxaa cajiib ah tacbiirkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamaha uu la xiriiriyey oo zilzaalka waxa u egay qiyaamaha keliya uu dhacayo iyo wakhtigeeda wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala laba aayadood oo kale ku tilmaamay rususha iyo mu'miniintu waxa ay dareemayaan marka ay dhibaatooyinkaasoo kale la soo gulboonaadaan meel kale oo zilzaal qur'aanka qofka inuu dareemayo lagu sheegay ma jirto midda koowaad waa middan aayaddan suuratu albaqara oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay massathum alba'saa'u waaldaraa'u wazulziluu xaaladdaas uu ilaahay ka sawiray dadka mu'miniinta ah xaalad qiyaamaha waxa dhacaya oo kaleta zalzalad alcadiima baa nafta mu'miniintuna sidaasoo kaleetay noqotay dhibaatadu meeshay gaartay wazulziluu cadow dhinac kasta ka yimi qaarkood laayey qaar xasuuqay qaar godad dab ah ku guray magaalooyin dhan rogay beeniyey rusushii ilaahay laftigeedii la dilay qaarkood la dabxiyey la gowracay la cabcabsida iyo dhibaatada iyo culaysku meesha ay gaartay dadkii mu'miniinta ah way ruxmeen zilzaal oo kaleetaa ku dhacay tacbiirka labaadna waa suuratu alaxzaab iyadana waqtigii qaswatu alaxzaab xaaladdu siday noqotay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sheekeeyey mu'miniinta in zilzaal oo kale ugu dhacay dhulgariir oo kale ugu dhacay id jaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum waid zaagat alabsaaru وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا maalintaas waa maalinta raggii saxaabada ahaad garanaysaan cabsi iyo gaajo iyo dhaxan iyo go'doomin intay isugu darsantay ay asxaabu siyar ka sheekaynayaan xudayfa sida uu leeyahay radia allahu canhu nebigu calayhi salatu wasalaam uu yidhi waryaa nina horkacayahoo nimanka gaalada warkooda ii keenaya qof shafka qaada la waayo dhulka kor u qaado madaxa kor u qaado maaha raggaasu inay fuleeya yihiin xaashaa kallah laakiin waxaa weeye nin walba waxa laga yaaba leeyahay nin kalaa kaa horeeya marka xaaladdu meeshay gaartay aad garanayso heer uu ilaahay subxaana wa tacaala aayadda horteeda ku tilmaamo wabalagat alquluubu alxanaajir qofka marka cabsidu ka badato iyo diiqadda wadnihii baa meeshiisa ka soo ruqaaya sida uu ilaahay tilmaamayo markaasuu wadnihii inta meeshiisii uu ku fadhiyey ka soo kacay buu halkan kalxamahaya
وبلغت القلوب الحناجر رونتو إنه صبح أو بنانك وصبح أو عبس ماشي دباتدو marka dhibaatooyinkaas way dhibaatooyinka marka ay isweydiinayaan aayadahan culimada qaar baa yiri waqtiga suurat al-ahzab ay soo degtay soo aayadan qaar baa yiri laakiin macnuhu waa guud ahaan dhibaato saas oo kale ah marka ay timaado zilzaalka laguma tilmaamin laakiin aayadaha la midka ah waxa kamida آيات سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى كل شيء وقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين كان النبي عليه الصلاة والسلام بلا سبر سيناي oo dhibaatadii iyo ciriirigii hayay oo quraysh iyo kufaar iyo mushrikiin ay beeninayeen oo dhahayeen waa saaxir waa beenaan oo sida hadda social media la adeegsanayo qofkii runta badnaa beenaale laga dhigay oo qofkii xaq lahaa baatil inuu yahay laga dhigay iyadoo la adeegsanayo dacaayada iyo aaladda دعاية إعلام حق له قالوا أي هيستو مركا تاس دباتة داس أي النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي سهي إلى أصحابتي سوء مادان لهان ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا لنا نبي عليه الصلاة والسلام ولي هاي هدك دقيقين اصبروا كايلها سوقت قال سيدنا سودكتي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا يعني وي ثبات كودي الصبر كودي وصقنا ذي ونبكاس بكجرين إلى نصرك مركا إلهي ماذا وقت جيس إلهي قلت لك مركا وقت بوليه نصره صاصا قرنينا ساعد بوليه هي عواطفتي أن إيو وحج علي سيجي أن إيو إنك ما ركتي سيدا وحين أقوم مقضان إيو وحاصل لكم تعلقه نصر إلهي سبحانه وتعالى حكمة دوا وين وإلهي سبحانه وتعالى كل هي له الحكمة البالغة سيدا سوكل إلهي سبحانه وتعالى آيات سورة يوسف ولمد نبي يدوي سويدين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا يعني هير أي يأس قص قارن بقص قنايا معناها ما هي إني بينينيان بل أنت إلهي سبحانه وتعالى لكن درين كيبا وحلق قاريا نبكى حالة قصوك جاءهم نصرنا وقت مركا كيسو إيمانا إلهي وطلق لي بان نصر إيمانا مركا سؤال طبيعي يوي ما أنتنا إن ضد مسلمين سويديان ور نصر إلهي هاوي ومؤمنين تقبل قاضي المسلمين اللي حسوق أيو كو يطبن بلاد سنة كبا وحير كدمية يا غزة لقراعي هبين يما عليه قنابل يضب يقول الردية أتقام مسلمين تا أدون كنا داونا فرج مسلمين تترددوا وحيكون دودة هلا ببليون مسلمين تغزة جوجا أردنا مركي أي كامل كأهاين 2 مليون مجانين كن مليون كن يشم بقولوا مليون أيا داون هرايا عالم كجو سجارسين تدو يميروا البجوت هذه الدولة الله حسابية مسلمين تمجع هذا وتا مجع إسلام وتا كنتن يتدوى الدولة دوت كنتن يتدوى الدولة دوت كنتن يتدوى بقر أما مدحوين أما سلطان أما واحد وانت كل شيء أما أمير إيوه إنكبضا كن مليون أو مسلمين وشهادني هل كاملين الروح مساكين تا ماشي كو حريسن قالوا كو اوضتي قعدوا مسي
ee isu bahaysatay kii ka fogaa iyo kii u dhowaa ya saasaan u daawanaynaa 11 bilood loo daawanaya waxa weeye markaa in la isweydiiyo mataa nasrullaahi waa shay caadi ah oo dabiici ah bal iimaan bay tilmaamaysaa dadka su'aasha weydiinaya inuu iimaan ku jiro لكن إلهي سبحانه وتعالى ما أركواين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إلهي غافل كماها إلهي وأوتشيدا إلهي وإنه قلنا حريص بنيه هذا مؤمنين تاه بأنفسهم بوقلنا حريص بنيه لكن حكم أين قرنكرن laga yaabay calaamadaheeda qaarkeed inaan aragno laakiin aynaan koobi karin ayuu ilaahay ka leeyahay nasriguna wuxuu yimaadaa goorta ugu munaasibsan oo ugu fiican yahay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dadka mu'miniinta ahi marka ay istaahilaan markaas in la soo dejiyo nasriga iyaguna mutaystaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waqtigeeda qadaro ayuu soo degaa laysa biamaaniyina jeclaysigeena inaga maaha taas waa marka inaynu ogaano inay tahay mixnadaas iyo shiddadaas iyo culayskaas waa wax soo maray dadka mu'miniinta waa wax rusushii soo maray ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ma mooga waqti bay leedahay dhibaatadaasuna way dhammaan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aayadda aakhirkeeda ku sheegay oo guushii ilaahay way dhowdahay waana ballan laakiin xikmad iyo waqti bay ku socotaa sidaan arki doonno masalada labaad waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ballantiisa kelimadda mataa nasrullah alaa ina nasra allaahi qariib kelimadda nasra haddaad raacraacdo qur'aanka kariimka ah tasriifaadkeeda ilaa 78 bay ku dhowaanaysaa dhammaanteed guushaas adduun iyo aakhiro waxay la xiriirsan tahay dadka mu'miniinta ah ee dhabta ah hal mar lama xiriirsana gaal lama xiriirsana waxay kula xiriirsan tahay hadday la xiriirsan tahay gargaar inaanay lahayn laa yunsaruun walaa hum yunsaruun ayay kula xiriirsan tahay inaan loo gargaarihayn cid u gargaarta inaanay lahayn adduun iyo aakhiro wax u gargaara inaanay jirin laa yastatiicuuna nasra anfusihim walaa hum yunsaruun laakiin nasriga guusha taageerada hiilka oo kelimaddaasu ay xambaarsan tahay difaac kulligeed waa dadka mu'miniinta ah sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ballantiisa ku qaaday ballan adag isagaa isa saaray wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin ilaahay wuxuu leeyahay korkeena xaq ku tahay isaga xaq isa saaray alle subxana iskaga dhigay inaan u gargaaro dadka mu'miniinta ah إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولينصرن الله من ينصر والتأكيد توكيد مشهود به من ينصره إن الله لقوي عزيز نبي يدي إلهي ساسه قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا نبي نوح مركه إلهي أقيشر أو يا رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فقال إلهي سورة ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا
إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نبي موسى عليه السلام هارون هي تذكر المؤمنين تلجري إلهي سبحانه وتعالى غير فرعون وكقولي ونصرناهم فكانوا هم الغالبين يقوش هنتي مرك إلهي سبحانه وتعالى بلنتيس ومؤكد ما خالفته منا الله لا يخلف الميعاد. لكن ومسألة صدق هذا نصر قال إلهي سيدا آياتها بقعد وحليها شروط وحكمية هي سنن إلهي قوانين إلهي وكسعودها ما هو عن حكمة الله هنا إلهي أكتيس ما الصعودان وقت بوليه أسباب بوليه حكمة بوليه السنة يعني قوانين مضطردة أو أن اسبدلي هين بوليه مركو صداه سببها أصداه يبوليه لكن لا يتخلف وقت جيس مركا يقرته يسعى ديس إلهي سبحانه وتعالى مساعيش مركا حق نصرقا إلان كأوغا أنه أي تهي وأنكو حسابتنه وحوي كو horta sunno waxaa jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayo nasriga ilaahay kaliya bixi cidduu doono noo siiyo wama annasru ilaa min cindi illaah ina allaha casiizun xakiim cid kaloo nasr keeni kartaa ma jirto yansuru man yashaau wahuwa alcasiizu alraxiim wama annasru ilaa min cindi illaah ina allaha casiizun xakiim لبا آيات سورة الأنفال وسورة آل عمران إسلا آيات داس كسونا ونغنس مد اللبات وحجرت السنة كلا إلهي سبحانه وتعالى وليه أن الأيام دول مع المه الدنك ويس بالدلال هو كلتن ومضاها كلتن وتلك الأيام نداولها بين الناس سنة إلهي يومي ما جرتو هالقراء ولا قد واحد إسكاي سنة نصر أما قوش ما جرتو حكمة من إلهي سبحانه وتعالى كله حكمة داس واحد كم ذنا وعدي إلهي سبحانه وتعالى حكمة ذا كم ذا وغزوة أحد مركي أي مسلمين تقول جبين قيبتي الدنباء يدقال قيبتي هرئية كوغوليست سان ognahay qaybtii dambe markay jabeen ayay isweydiiyeen wax badan muuminiintu saxaabadu isweydiiyeen see hasiimadan noogu dhacday see raggaan oo dhan oo saxaabada u dhinteen see gaaladii sidaan nooga guuleysatay see raggaan 70 ka ah oo ragii ugu geesisanay ku jireen saxaabada Hamza iyo rag la midka ay hogaaminayeen ee ilaa yawmina hada xabaalahoodu ay ka muuqdaan Madiina hadaad markaa tagtaan oo cimrada ama xajka aad u tagtaan oo Madiina ziyaarataan meelaha la soo ziyaarto ay ka martahay maqaabir shuhada jabal Uhud shuhada Uhud badankiinba waa tagteen baa laga yaabaa sidee bay ku dhacday isweydiiyeen saxaabada marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha uu ka faallooda jabkaasna uu ka faallooda sunanta ilaahay iyo qawaaniintiisa nasriga xukuntana wax badan buu ka bayaaniyay aayadahaas suuratul al-Imraan ku jira الإمام ابن كثير meelo badan kaga hadlay Imam al-Qayyim al-Jawziyya iyo culimo badanna ay aad ugu la fagureen 60 aayadood taqriiban oo suurada kamida baa waxay ka hadlaysaa waqtigii qaswat Uhud وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تفلحون إلى آياتها ستشوكرتو وحاكو جرا وليا ماشي إلهي سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذا آية لماذا آية ضفرش إلهي سبحانه وتعالى لا 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 سلامة waxaa lagu tacliilinayaa oo lagu sheegayaa sababaha waxaan u dhaceen ayaan rabaa inaad fahamto haddii nabarra idin soo gaareen oo dhaawac idin soo gaaray oo dhimasho idin soo gaartay oo dhib idin soo gaaray gaaladana dhib waa gaaray aayad kaleeto oo ka dambaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay awalamaa asaabatkum musiibatun maalintaa musiibada idinku dhacday qad asabtum milayha shalay idinku beder oo sanad ka horraysay yaa 70 waa ka disheen 70 waa ka qafaalateen idinka 70 baa laydinka dilay keliya waxba laydinkama qafaalan idinku laba jibaar baad maalintaas gaarsiiseen ilaahayna subxaanahu wa tacaala guusha ayaamaha dadka uu kala bedelaa xikmad ilaahay leeyahay wey xikmadahaas ibn qayim iyo culimada kala badan baa ka hadasho oo xikmadahaas badan haddii maalin walba guusha la siiyo dadka muslimiinta waxaa laga yaabaa quruur inuu ku dhaco isla weyne inuu ku dhacdo inay isdhigtaan waxaa laga yaabaa inaan waxba diyaar garoowin marka dambe yidhahdaan ilaahay baa nasriga waa na siinayaa mar walbaba gaalada waa nooga yeelinaya maalin walbaba inaanay diyaar garow samaynin iyagoo la lahaa waacidduu lahum ma statactum oo la rabo inay wax walba diyaariyaan oo wax walba takhdiidiyaan oo wax walba qorsheeyaan oo wax walba ka baalaan degaan ayaa la rabaa oo asbaabta dhan ay sameeyaan oo aanay ka tegin oo aanay keliya tala saaran in ilaahay guusha uu siinayo sax guusha ilaahay waa idin siinaya laakiin waxaa la rabaa idinka inaad walow yashaau allahu lantasara minhum ilaahay xoog ma qaadato walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin idinka iyo gaaladan waa la isku keena imtixaamaya marka ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahy idinka haddii nabarra idin gaareen iyagana nabarra waa gaareen oo gaalada dhib uma yara dad badan hadda waxay tawaqucayaan bal yuhuudda ka mida yuhuudda ma aha annaga yuhuud hadda ka mida khubaradeeda ee wuxuu leeyahay dagaalkan sanad hadduu sii socdo dowladda israa'iil way u dhammaatay yuhuudda sahniyuunada way u dhammaatay dowladdaas waa burburaysaa وبيت العنكبوت أو ملينا وحوي وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مركا حكمة إلهي باكرة أبدا صح ذاتك مؤمنين تانا إلهي سبحانه وتعالى وحليه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا محالك لصارى وين عداتها يا إيمان كيسو لبيها يا نفاق كجرة أو ضدك مسلمين تقول عجرة كن كان بليون كن كان مليون انتبه منافقين كل حجرة وينك العدات لك البحاء وقت لك البحاء لقانا ضدك يوك العدات مركز تاسوح إلى هاي قيمة لغو بحناية ضد بدنا أقول لي أنا درتين حقيقة أسوين عدات ضد بدنا أقول شيء وليعلم الله الذين آمنوا لأنه إلهي وحسينا نصرك حقا علينا نصر المؤمنين ضد مؤمنون أقبل لنقاضي منافقين ومقبل لنقاضي وحبا منافقين تنادتك أهل الإيمان كما يكون حجران ووجيين ولا اسكوهم باليه صلى الله عليه وسلم ولا اسكوهم بليه يضل ولا اسكوهم بليه نصركم أي ماذا على كلام بحاه وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء منازل إلهي الشهداء وقلت لك الله يباجرت حق لك هنا دد كذي أدنى لك هنا دد كذي سوين له يلا ما إلهي بقى قادنا يددك استفينا ودورنا يا شهادة ودورشوا ويتخذ منكم قيب إن كمل وين شهداء وقاطع إلهي سبحانه وتعالى مركب مو حربتان إن إلهي الشهداء إذا قاضن كي 1000 مليون هداتهين هدي 1 مليون أما 2 مليون أما 6 مليون أما 5 مليون شو هذا اللي إذا قاطع مرتان أنت كلاتنا مالك كلاتو عمل كلاتو مالها كوكشوا أما جنة كوكشوا مركا
xikmad kale waay iyaduna oo loo dhimanayo oo dadka mu'miniinta ay dhimanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waytakhidha minkum shuhadaa baa ku jirta wallahu laa yuxibu الظaalimiina oo idin xusuusinaya marka shuhadada uu qaadanayo maqaabilkeeda kuwan dilaya shuhadada ilaahay ma jecla hum malaynin inuu jecel yahay marka uu ay maaragtay meel muslimiinta kaga adkaanayaan ama ilaynayaan malaynin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dhoweynayo ama uu gul uu saa isku siiyo maaha waliyumaxis allahu aladiina aamanuu kuwii mu'miniinta ahaa laftigooda oo laga soo saaray munaafiqiinta laga soo saaray kuwa mu'miniinta laftigooda haddana waxaa la gelinayaa warshad kala saarta iyagana lasii kala miiraya oo darajaadkooda lasii kala saaraya isku darajo ma noqonayaan 100 darajo weeye jannadu 100 darajo inna fi ljannati la 100 daraja 100 darajo oo kala sarraysa boqolkaa nin baa darajada u horraysa jooga waa jannadii buu ku jiraa laakiin darajada koowaad uu jooga darajada labaad uu jooga tobnaad labaatanaad soddonaad afraad marka saasa darajaadkaas maxaa lagu kala saarayaa waxaa lagu kala saarayaa camalkooda imtixaanka lagu kala saarayaa waliyumaxis allahu aladiina aamanuu markaas baa waxaa ku xigta marka wayamxaq alkaafiriin gaalada marka in la baabiyo oo ilaahay u tirto marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigiisa iyo ballantiisu waa meel laakiin waxaa jirta xikmado badan oo nasriga la xidhiira oo ummadda nasrigaas ilaahay keenayo ayaamihiisa iyo isbeddelada iyo imtixaanka waxaa kaloo ka mid a yacni nasriga la xidhiira nasrigu dagaal weeye arrintaanu bayna alxaq waalbaatil dagaalka bayna alxaq waalbaatilna wuu dheeraadaa ده قوم فرعون كسوقات إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح هبين إيمال نكاس وحبو قليا وحبو الدوحية وحبو ذبحينيا يذبح وكثرة الذبح يعني قورع هذا تربضا ما هالمر يذبح ما يذبح هالمرة وحق الشيء وخلاص قورع لكن يذبح ترب وقور عياوي واي انت سوق قرنبي سعود انت سوق قرنبي سعود طيب نصرك إلهي سبحانه وتعالى مركوي إلهي سبحانه وتعالى وحليه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وحصل من النصر يقول وإلهي ويباير بني إسرائيل ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه نصرك ننكي هقامين لها هضوا بدلنا يا الناس كل نوجينيا عجائب سو ما أمر إلى قرم اللي سوين ويلكاسو انتو ذبحي واسيس على أمر انت ويلكاس وهنا قاض وأفرتن قارو وكبعد أفرتن كلا فرعون لصراع لقلو ذبحي واسعدي إنك سام حقيا سيد إلهي أمورتي سعيتاي وكلا الله إلهي وحشيا نصري يتمكن غير بني إسرائيل إنه صينا يضدك الله ضعيف صدي وأدونك الله ضعيف صدي إنه إلهي من ندي سكون نصر سكسينا وقت بيق هذا الناس سيدا صوكله حتى النبي موسى عليه السلام مركو غير بني إسرائيل لسه قد بي أو تي كسب بدبادين واتي لا فري إني جهادان واتي لا فري إني بيت المقدس قلان واتي ديدين محال قلفتي الأرباحة وحال قلفتي 40 سنة يتيهون في الأرض نصري ما يستاهلان قوشي ما يستاهلان meelaha warwareegaan marka ila xaaladu isbedesho marka nasriga waxa ku xiran oo kaleeto oo qawaaniintiisa kamid ah ummadda inay isbedesho in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim taghyirku wuxuu ku xiran yahay nasrigu wuxuu imanaya marka isbedelo oo sida wanaagsan la isu bedelo ayuu imanaya marka arrimahaas oo dhan waxay la xiriiraan nasriga haddaan u nimaadno xagga shuruuda marka
dhinaca shuruudaha waxaa ka mid ah wax yar aan ka tilmaanno 6 baan ka tilmaamay oo nasriga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xiran yahay kow aliimaan walcamal الصaalix iyo istiqaamada ummadda iimaan dhab ah xaqiiqi ah ya in laga helo camal saalixa laga helo istiqaamo iyo toosnaan in laga helo iyo camal wanaagsan in laga helo diinta ilaahay inay u gargaaraan diinta ilaahay inay u gargaaraan nusratu diin illah in tansurullah waa shardi in tansurullaha yansurku oo macnaheeda dhanka kaleeto haddaa u beddesho ay tahay haddaydinaan ilaahay diintiisa u gargaarin anna idiin gargaari maayo laydin gargaari in tansurullaha haddaad ilaahay u gargaartaan ilaahay gargaarkaagama baahna diintiisa u gargaar waay ducaadda u gargaar waay xaqa u gargaar waay cadaaladda u gargaar waay ya sharciga ilaahay u gargaar waay wanaagga u gargaar waay macruufka u gargaar waay munkarka u gargaari ya munkarka u gargaari markaasaa anna idiin gargaaraya waxaa kale oo ka mid ah ijtimaacu lkelima waaxdatu saf ummadda midnimadeeda wada jirkeeda ishaysadkeeda isjeclaanteeda walaaltinimadeeda ya qiimo weynay u baahan tahay wax suuqa laga soo qaato maaha si sahla lagu soo helana wax badanaad u huraysaa inay walaaltinimada iyo kelimadda midaysan ee muslimiinta midnimadooda ay timaaddo qof walba oo muslima imtixaanuu u gelaa waxna waa u huraa waxaa laga yaabaa walaalkaa inaa isku weydaan ina adeerkaa inaa isku weydaan aabbaha iyo hooyadaa inaa isku weydaan baa dhici karta midnimada muslimiinta iyo waxdadooda dad aad jeceshahay inaa isku weydaan cadaaladda oo istiqaamada oo sharciga ilaahay aqow dad badanaa isku weynaysaan cadaaladda inay xaq inay jirto oo cadaaladdu hirgasho imisaa dad isku weynaysaan qiimay leedahay ammaanadii imisaa dad isku weynaysaan iihaarkii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd iyo mu'miniinta adillatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin inay u noqoto imisaa isku weynaysaan imisaa la rabaa in loo galo halgan iyo jihaad halkaasaad ka garan kartaa marka ijtimaacu lkalima shardi weeye dii kale nasrigii ma imaanayo la soo degayo waxaa ka mid ah icdaad alcudda ummadda waa in laga hela icdaad alcudda waacidduu lahum ma istatactum min quwatin wa min ribaati alkhayri turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum yani hadda waxaa la yidhaahdaa waxyaalo waxaa la yidhahdaa turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum caawa ma taqaan waa inay cabsi gelisaa dad fog dagaalba intaan la gelin oo dagaalkiiba loo baahan hadda fiiri nuclear bomb iyo sawaariikhda waaweyn oo isu gudubta adduunka gees ilaa gees isaga gudubta wax maalin walba la adeegsado maaha sanad walba wax la adeegsado maaha laakiin ninkan inuu haysto baa looga baqayaa waxaa leeyahay looma dhowaan karo maxaa dhacay wuxuu haystaa hubka noocaas iyo noocaasuu haysta marka agtiisa wixiisa lama mari karo lidiisana lama mari karo wixiisana looma dhowaan karo ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ma rabo keliya hubka la isku difaaco keliya inay sameeyaan maya radciga kan dagaalkaba aan lagu gelin inta badan laakiin lagaaga baqo inaad samaysato weeye waacidduu lahum ma istatactum min quwatin wa min ribaati alkhayri turhibuuna maa tuqaatiluuna maaha aayad tuqaatiluuna maaha markaas turhibuuna bihi caduwallah dagaalka waa inaan loo baahan waa inuu baqaa meeshiisa waa inuu ku cabsadaa oo aanu kuu soo dhowaan oo xuquuqdaada u soo dhowaan oo waxay ahayd dadka muslimiintu sida laga rabay haddaan macnaha idiin soo koobo ama idiin soo basiidiyo falastiin ama reer qasa inaan lagu dhicin bay ahayd in la dhaho oo maxaa dhacay haddii aan waxaan dilo ama intaan aan dilo atoomigaa laygu dhifanaa ama waxaa loo ma geli karo ma sawaariikhda qaaradaha isaga gudubtaa ninkaan haystaa uma dhowaan kara aniga
بقى ولا عبسنا مركب إعداد العدة ومضي ما سميس لأن النصر قال شرط بحرام ديارية ما استطعتم هرت واحد إنكم أودان ديارية ما أنا ديارين تضبط كنتم كدولة دو هذا أشياء بدن كود بقول كيف السجاشن هي السجال بس طولت ما سمي كلام بس طولت بس كده هو حكى له كوين بس طولت حتى ما سمي حاوية بس طولت ما سمي كلام آوي مركز يعد لهم سدوعة سيان النصر يديسي مال حوله وحكمتي هي إعداد حكمتي من قوة صواريخي وتانجيدي ودياردي والعكتي ومالكي خزندي waxaan fiirinaa مثلا dawladda islaamka markii ay jirtay oo laga biqi jiray laga hiibaysan jiray oo muslimiinta lagu dhici jiray ya waqtigii cabaasiyiintu مثلا xoogga ay lahaayeen ka soo qaad waqtigii cabaasiyiinta xoogga ay lahaayeen umawiyiinta iyaga iska dhaaf waqtigii horeyba ku dhawaayeen khilaaf raashid ay ku sii dhawaayeen cabaasiyadii xataa raggoodii hore Abu Ja'far al-Mansur Ma'mun wiilashiisii Mahdi iyo Mu'tasim waa Mu'tasima gabar baa meel ka qaylaysa waa Mu'tasima Ciraaq uu joogaa isaga Sham meel agteeda bay ka qaylaysa hiilay weydiisanaysa ciidan 100 kuna oo saacado gudahood ku diyaariyay caradii ninkaas soo carooday waxa la yiri ninkaas gabar muslimada baa nin gaali dharbaaxu ku dhiftay buu ninkaas la carooday amiirka la carooday sida shaariikhdu sheegay markaas rag agaadkiisa fadhiyay caradiisii indhihiisa way eegi kari waayeen baleer markaas uu yiri ciidan 100 kun abu markiiba diyaariyay oo isagu hogaaminay oo dul istaagay isla magaaladii gabadhu ay ka soo qaylisay magaaladii qabsay oo ninkii yiri hal ii raadiyo gabadhaas dharbaaxay alla ii soo qabto nolol alla iigu keeno ninkaas marka way wax ku diyaarsan yihiin maanta hadda waxa la isku faanay yaa diyaarin kara ciidan 100 kun oo hal mar duula yaa diyaarin kara dawladaha diyaarin kara yihiin taas lagu kala baqaa taas lagu kala cabsadaa ma aha dadku caashaq waan caashaqay waan uga baqayaa reer hebel iyo China iyo Mareykan iyo hebelka iyo uga cabsanaa ma aha kalgacal iyo jacayl iyo mabaadi iyo waxyaalo iyo shuuciye la isku dimuqraadi ma aha wax la isku xiniyo waa gacanta saasoo aha waqtiyadii ka dambeeyay Cusmaaniyiinta markii dambe ay daciiftay markaa مثلا oo إعدادكii la waayay oo aan waxba la diyaarsan oo dawladda cabaasiyada waa jirtaa magac ahaan laakiin waxba uma diyaarsana ciidankii Baqdaad ku soo haray waqtigii Tataarku soo galay waxa la yiri 25 kun bay ahaayeen 25 kiina mushahar la'aan bay u kala yaaceen Allah gaajay u kala carareen soo hadda ma maqashaan dawladaha qaarkood muslimiinta ah askariga inuu gaajaysan yahay oo miskiin oo ebriya oo mushaharkiisa aanu heli karin mushaharkiisa qadadiisa ma heli karo quudka ciyaalkiisa xataa ma heli karo marka cabaasiyiintii markaas waxay noqdeen askartiina kala cararaan Tataarku saas uu ku soo galay meel cidla buu soo galay meel cidla ah buu iska soo galay soo gali karay waqtigaas ka horeysay ma soo gali karay saasay isu bedeshay xaaladdu markay soo galeen Tataarku Baqdaadaas ninkaas oo ciidanka ka diyaarsanay 2 milyan lagu dilaalay 2 milyan oo muslimiin oo culimo muhaddisiin qurraa xufaad alquraan غيركود تري muslimiin ayaa lagu xasuuqay Baqdaad sidaas oo kaleeto waqtigaas meesha la yiraahdo oo ka horeeyay 100 sano ka hor Tataarka 656 bay ahayd markay soo galayaan 492 waxay soo galeen hijriyada saliibiyiintu Quds tan bay soo galeen
iyadoo ay daciif tahay cabaasiya daciiftay iyo dowladdeedii iyo kuwii ku hareeraysnaa 40 maalmood ayaa quds xisaar lagu qabtay baytulmaqdis saliibiyiintu quds madadkooda xayfay kala soo degayeen magaalada xayf oo dhulka la haysto u dhow baa doomahoodu ka soo degayeen u wada gurmadka u wadaa wax hor joogay ma jirin laa fi masr walaa fi shaam ummaddii waa daciiftay waa isdhigatay yaa waxba ma diyaarsato waxba uma diyaarsana macaasidii iyo qusuurta waxaa ku batay gabdhaha niikinaya heesaha la qaadayo xafladaha la dhigayo kaaga yaa badan iyagoo gaajaysan bayan haddana xaflada ka suulayeen bal ka warnaade annaga hadda Soomaaliya wax naga xaflada badan ma jiraan wax naga daciifsan oo naga gaajo badan ma jiraan hoteelada muqdisho habeenkii dhan waa wada booked waay xafladan hebel baa xafladan hebel waa gudoomiye hebel baa xafladan gobol xasan xafladan heesi xafladan fulaan heesaa keen bahalkii keen kada keen gabdhaha ninkinaya keen wiilasha heesaa keen waxa keen dibadaha laga soo waariday kumayaal kun boqolaal kun oo dollar askariga difaaci lahaa dalkana $100 u baahay ma haysto waxa leeyahay looma hayo miisaaniyad $100 looma hayo ummadaas marka nasriga see lagu siinaa idinka ii sheegay إيش يعني هذيك مسيرة هذيك إيش يعني نصر يسوي سوينا مركا حن الله سنتي سوق الصعداء ولا رجاله ليننا إلهي سبحانه وتعالى بلنتي سي أيضا ما بلنتي سما مغنى مثل الله بعد ذاتك مسلمين تاي وحكم كذا واسكم متوي هذا قزوة أحد مسلمين محي أجبين قهر ير أي أمر النبي خلافي عليه الصلاة والسلام ومع سيد الأيم ما هي كل قد لكن مصيبة دي دمان way asiibtay annagana hadda qolay yar hadda ay soo maleyneen qof walba oo annaga naga mid ah oo muslimiinta ka mid ah oo macaasi iyo khilaaf ku jira wuxuu madad u yahay sahyuuniyad ama ha ogaado ama yuu ogaan maxaa dhacay Umar marka uu ciidanka saarayo wuxuu oran jiray khulafadii raashidiinta ahayd waxaan idinka baqayaa macaasidiina idinkama baqayo ciidanka cadowga idinkama baqayo laakiin waxaan idinka baqayaa macaasida idinka dambiyadiina idinka baqaya marka dambiyadiinu wuxuu yiri waxay u yihiin madad cadowgiina madad u yihiin waxay gurmad u yihiin cadowgaaga marka annaga dadka muslimiinta shuruudii kow horta inay istixqaaqsadaan i'daadkii sabr wa thabaatki la sugnaantii midnimadii diinta ilaahay u gargaarideedii ma diinteeda u gargaaraa marbay imanaysaa annagoo kale hadda dadka muslimiinta dhexdooda marbay imanaysaa diinta ilaahay iyo cashiiradaada ama walaalaha ama ilma adeertaa oo qaldan iyo diinta ilaahay baa iska hor imaanaya kee raacaysaa kee u gargaaraysaa qabiilkaaga iyo diintay noqonaysaa mararka qaarkood sharciga ilaahay baa la rabaa kee raacaysaa bay noqonaysaa marmarka qaarkood halkaas ku imaanaysa ku hor imaanaysa haddaad marka diinta ilaahay u gargaarto waxaad soo dedejinaysaa nasrigii muslimiinta haddaa u gargaari weydana waad daahinaysaa nasriga walaalayaal nasriga ugu dambeeya waxa weeye nasriga ilaahay subxaana wa tacaala waa imanayaa waa joogaa waa diyaar bal malaa'igta ilaahay way darban tahay amaray sugaysaa bas أمرك سويسا وحنا نكفها ميساء حتى غزوة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إن قال لنا الله يا ذلك المؤمنين تا وقت جوجيب اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذا مو إسبهيسيه بايمي إذا سود الدقي فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها أننا وحانو صدرني أو صدر دقني أسكر إلهي إيه ضبيله أمرك إلهي سوايا
معناها سياق آيات بركة أوفيسته فاء تعقيب السريع ما كان أوفيس وحوي مركع إذا ماذا قريش إسماعيل أي مادين خندقة أما قدك كركيسة إلهي ملائكتي سئي الضبيله سنة واي مادين أمرك إلهي بيسوعي مدة صلواتك عيشوا فرتك عيشوا ليس هي واجو كان إذا مدي إلهي لكن أمر إلهي بيسوعي يعني. أنت أمرك يسوعيان امتحانك إذنك اللي يدين قليلا يا اختبارك الله يذكر كرينا والله اللي يدين كلا صارا وأنا وقتي قلت تمحيص كنا عاي وضدك منافقين يلا كلا صاري يهودي بلنتك بحضي يوحى صلى الله عليه عضاتي وي مدة اسمه كتبنا إلهي سبحانه وتعالى وحصوف صوف الصحي أسكرتي سي وقت قادي يضبيليه سي مركاسي وحي دنب قديين هبين بيكون كلا بحين هل هبين بيكون كلا بحين وقورن مركا مصر إلهي وديار ملائكة إلهي ودربنته حتى سورة آل عمران ماشي إلهي اللي هي ها يأتوكم من فوركم هذا ربكم يمددكم ب5,000 من الملائكة مسومين علماء المفسرين تقارقوا حلين شنتا كن أو ملائكة وديار وعيمنتها وعيدا ميل فدية وقرمت كدتك مؤمنين تا أفدية أو مقعابا أو عيدا ماذا هبل اللي يرادوا مسومين وحي مدد أيهن دتكست مؤمنين إلى قيام الساعة أو ديا أو متيستي إن لو قرقارو شنتا كنا سوق ليس دقالك مركز يقول بحيث ماشي مركز نصر إلهي ويانا لكن ولا ريال أنك شروط ما كسبه دتك دقال كوجريس كده أنك دتك أنا جوجا ميلها فوق جوجا ما كسبه دولة الإسلام قلبي جينا يقول كأنه ما كتاجنت مساعدة وجينا مدد قلنا مسلم كسته ودينت إلهي أن يعدالة أن أوجهه iyo shacab kasta oo saas aan cadaalad ilaahay ogayn waxay u yihiin gurmad cadowgay gurmad u yihiin macrakadana way dheeraynayaan haday is ogyihiin iyo hadaan is ogeyn muslim kasta oo ribada yuhuudu leedahay ku tacaamulaya oo ku macaamilaya oo dheeraynaya nasrigana wuu dheeraynaya gurmadna wuxuu u noqonayaa gaaladu u noqonaya cadowgu u noqonaya muslim kasta oo muslimiinta kala qaybinaya oo kala tashqiiqinaya oo dhiigooda banaysanaya oo iyaga khilaaf iyo fitno dhulkooda ka oogaya iyo dagaal iyo qarax iyo dil ku mashquulsan muslimiinta dhexdooda madad wuxuu u yahay yuhuudda ama ha ogaada ama yuu ogaan cadowgu u yahay muslimiinta buu madad u noqonaya gabar kasta oo ku mashquulsan alaabta yuhuuddu soo samaysa oo la yaray kana waa moodo kana waa makiya kana waa bahalkii kana waa moodo ilsaan loo qaato كنا وصدادي قريها وجبضا باريس كيالا وستيغا كيالا ألعابتان دمر كان لقوا في الدنيا لقصة سميه بدن كذا يهود باله وليبا واحد صهيوني يلا نبتها باله بل هذا متكلا وليبا قريها قاركود مقعيضة تلمامي كرنا World Jewish Congress هذا اللي منقل يراه المؤتمر اليهودي العالمي ويهود لقوا حكومة الدنك لأن الدولة بقول لسن يجا موقتها أنا ماشي عن أين دولة كلا تو الدون كل سن يا بهيسه دولة أو برلمانات كالدون كنوم والبقى كجرة أو يهودية مؤتمر كاسو كترسية أو وزير جرمال هجو سود أفريقيا هجو النرويج هجو سويدن هجو ملكة هجو مؤتمر كانوا كجرة هل كاسنو وشقيا هل كانوا وشقيا marka mu'tamarkaas World Jewish Congress-ka ninka madaxda ka ah reerkoodu waxay leeyihiin guryahan la isku qurxiyo alaabtan barafuunada iyo make-up-yada iyo dumarka waxyaalaha isku qurxiyaan house bay leeyihiin hadaan doono waa magacaabi karaa laakiin waxba magacyadiisa waad u baahan tihiin waad garanaysaa kulligoodna waa saas waa billionaire markuu yimaado dawladahan islaamka qaarkood ay carabaha sidii madaxweynayaal loo soo dhaweeyaa buu yimaadaa marka qofka malaayiintiisa kordhinaya gabdhaha muslimiinta ah iyo wiilasha muslimiinta oo waxooda kordhinaya
soo madad uma noqonayaan ninka malaayiintiisii bay kawcinayaan isna wuxuu siinayaa kan muslimiinta lagu laynay marka walaalayaal qof kasta oo fasaad inxilaalka waxaan yani akhlaaq xumada muslimiinta ku dhex faafinaya madadkaasuu yahay isku soo duuduub macaasideenna iyo dembiyada aan samaynayno iyo mukhaalafaadka aan samaynayno qof kastoo muslima oo meel kasta adduunka ka jooga wuxuu madad u noqonayaa sawaariikhda lala dhacayo muslimiinta lagu garaacayo ama ha joogaan falastiin ama ha joogaan bosna ama ha joogaan afghanistan ama ha joogaan soomaaliya ama ha joogaan meel kasta muslimiintu waa jasad waaxid waxaa la rabaa inay u hoggaansamaan ilaahay sharcigiisa meeshaada haddaa sharciga ilaahay adigu ku dabaqdo nasrigiina waad soo dhowaynaysaa mataa nasrullaahi sayakuunu qariiban jiddan wuu soo dhowaanayaa adaana soo dhowayn karaa adaana fogayn karaa bay noqonaysaa macnuhu marka haddaan ku soo khatimo mataa nasrullaahi qariib walaalayaal bishaaraysta bishaaro ilaahay wey ma gaaraynaa annaga ma gaarayno allahu aclam laakiin waa xaq wuu imanayaa ma waxaan noqonaynaa annagu kuwa jidkaas ku sii dhimanaya allahu aclam laakiin nasrullaahi sayaatii markaan annaga shuruudiyaan ka soo baxno markaan annaga dowladda islaamka istaajino dhulkeenna ka istaajino markaan annaga midnimadeenna iyo walaaltinimadeenna xaqiijinayno markaan khilaafka iyo tanaasuca aan iska dayno waxaan soo dhaweynay nasriga ilaahay baa imaanaya markaan annagu si dhaba u shaqaynayno oo asbaabta ilaahay aan qaadanayno oo kasalka iyo isdhigashada aan ka tegayno waxaan xoojinaynaa nasriga ilaahay subxana wa tacaala inuu yimaado nasrullaahi qariib markaan si wanaagsan oo ixtiraama aan u shaqayno يعني نقطة كسر دمينيا فيري دتك مسلمين تاع صدح نينو شهداء أو مسلمين ما سير هذا كقرن أو داوع اللويمي بيان وكان متكور ريال لودي وعير ولالك يودي متك كلا لودي مسسنا وعير ولالك يودي يا متك مركز سير هبلا يقدر أن يودي كيورو كسر نقضي وادنت كيلو هذا وتي وادنت كيلو يقول من نعب بلير إيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يا أنك هذا وحيالها أن ولا ليا وحكم ذا ميلبان لين سوي استاجينا أضي أما هبر أما كبر أما الوير بعض قفة صوت أي رسول وأنكو دردورين يا بابورك وحن إيمانا يا ميل باركنا الله دكتور قفك كلا ولالك أو صوت دجنا يا ما إلاني يساسا ودجايا markaasuu meel uu ka gal waaynayaa isagiina mid kala imaana masaajidkan ku ordaya aniga baabuurkan ku gooyinaya ma ogi xataa ma mustacjil ba ma ahamiya ma degdegsan yahay ma degdegsanamiya ma u fakir ani qofkan kale ma ku fikirayo wax kale cid igama khusayso ana bacdi duufaantu hatimaad ani gadaashay markaas maalin dhow waxaan joognaa ka akhrinay Japan warshada باركن وين بيلي دايسو باركن كمركا وقت بالي يمادا تضبط صباحنimo shaqada la soo galo ama 6 subaxnimo shaqada la soo galo dadka soo hormara ninba wuxuu imaanaa 6 rubi dhiman ama 6 5 barkii buu imaanaya dadka soo hormara baabuurta waxay dhiganayaan baarkinada fog bay dhiganayaan hadda cidina lama hadlin lamana oran saayeel lama oran wuxuu dhiganaa meesha fog maxaa dhacay leeyahay kan last minute ka imaanayaan u deynaynaa meesha dhow waxaan u deynaynaa midka ordaya oo isagu minute-ka u dambeeya imaaday meesha dhow albaabka u dhow isagu ha dhigto kuwa yimaada iyagu meelaha ha dhigtaan marka kuwa kale waxay soo dhiganayaan xagga marka saf ka soo bilaabana meesha fogu ka soo bilaabana meesha dhow kama bilaabana hal ismu raacayna marka ummadaha qiyamka akhlaaqda dabeecadda xadaaradda qaabka ay u nool yihiin cadaaladda waxyaalaha soo dhaw waxyaalaha umamka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku dhisaayo wax ku qaybinaayo bay kamid akhlaaqdan sheeganay kamid cadaaladda kamid cadaaladii qofka muslimka ah oo madluumka ah bulsho muslima ku dhex jira hadduu xaqiisi heli kari waayo ummadaas sidee bay u sheeganaysaa iimaankii dhabta ah sidee u sheeganaysaa ma sheegan karto hadday isugu faano oo yiraahdo aniga laandheeraan ahay ma lay taaban karo adiga laakiin waa lagu taaban karaa say nasriga ilaahay u sheegan karta ma sheegan karto waxaas oo dhan ayaa nasriga ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo diyaar ah oo meeshiisa jooga
بوكو حرية هذا لني ما نوشبت وقادنا ما شاء الله سبحانه وتعالى نصر يا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إلهي سبحانه وتعالى توفيق لسان وافجيو ذلك مسلمين تانا النصر الله السيو إلهي سبحانه وتعالى قارهان ولا لهن ريال فلسطين أو دبك الله كدول قاضو إلهي سبحانه وتعالى ضبك الله كدول قاضو قنابشه ضبك إلهي سبحانه وتعالى الله كدول قاضو إلهي سبحانه وتعالى بردا وسلاما الله وديغو لباتدنا الله كدول قاضو إلهي قرقار كيسا وسود الدجيو مسلمين تردنا إلهي سبحانه وتعالى قرقار كيسا إلهي وسود الدجيو إلهي سبحانه وتعالى هو خيرك يوناك الراعة الله نقدقو ذلك أن الصوماليا قارهان إلهي سبحانه وتعالى إيدنا الله خير كسو دجيو نبتقلي يبرواقو إلهي سبحانه وتعالى هنوقدقو ذلك الصوماليا إلهي قلوبته ذا يسوچيدو إلهي هيسجعل يسيو دينتي سكو قرقار الله كدقو قرآنك يا سنة مساجد يا خيرك يا وناك يا معروف كو قرقار الله كدقو إلهي سبحانه وتعالى كو حمانته اسكر ريبنا الله نقدقو إلهي سبحانه وتعالى كو الشرط أن يسوق قرقار الله نقدقو شرط كو أن يسوق قرقارين الله نقدقو خيرك كو يسوق قرقار الله نقدقو وناك يا خيرك كو يسوق قرقار الله نقدقو إلهي سبحانه وتعالى كلمتي أنا هم ذيو قلوبتي أنا الله هم ذيو إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تحوق يدين يا نصر ميل أن يفلين إن الله كسيو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة القيمة. إله سبحانه وتعالى وحن كبرنا الشيخ ميسان كيس حسنات كانوا بوحيه كلمة كستي وير كستو يرينا إله سبحانه وتعالى إنه كأبا المريو عمر داري عبادة السوبان يا عافمان إلهي إنه كما نيستو أننا نجي لو كوا علمي كيس إله سبحانه وتعالى وكوا أنفعي إله وحن كبرنا مسلمين تا إنه قرقاره خاصة أهل غزة إله إنه قرقاره علماءنا إله سبحانه وتعالى إنه نوع حفظه أننا ضمانتين إله سبحانه وتعالى إنه ذنبين العفو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.